runtii arrin guud iyo mid gaar ah labada aan ugu maqnaa waxaan soo maray runtii dhowr wadan oo kamid yahay Imaaraadka iyo Ethiopia labadaba wadamada aynu saaxiibka nahay iyo dawladda Ingiriiska oo aan habeen hore casho ku lahayn safaaradii dawladda Ingiriiska runtii wadamada aanu madaxdooda saragnay waxaan kala hadalnay arrin runtii khatar ku ah geeska Afrika oo ay dabada ka riixayaan maamulka Soomaaliya ka dhisan ee Muqdisho oo runtii ah in ciidamo ururisa oo ay doonayaan inay keenaan xuduudda Somaliland iyo Soomaaliya u dhaxaysa oo sida la socotaan waxaynu muddo ku jiray wada hadal Soomaaliya iyo Somaliland oo siyaasadda ah hase yeeshee wada hadalka waxa fashiliyay dawladda Soomaaliya ama maamulka Soomaaliya kadib markii ay shirki keeneen dad aan ahayn dadkii aynu u fadhinay ama wada hadal ka dhaxeeyay Somaliland waxaana maanta muuqata arrintii siyaasadda inuu rogayaan arrin ciidan oo runtii ay wadaan inay keenaan ciidan ururiso ilaa 3,000 oo askari ah caalamkana ay weydiisanayaan inay ka caawiyaan iyagoo u tusayay inuu yahay ciidan Soomaaliyeed laakiin ujeedada meesha ku jirta ay tahay sidii loogu khalkhal gelin lahaa gobolkan geeska Afrika nabadiisa khaas ahaan Somaliland iyo horumarkeeda loogu khalkhal gelin lahaa taas runtii aanu kala hadalay in arrinta laga hortago wax laga qabto iyo khatarta ay u leedahay geeska Afrika mar dambe dagaal ka dilaaca runtii taas ugu weynayd iyo sidii wadamada aynu dariska nahay ama Carabta ahaadeen ama ahaadeen Ethiopia sidii nabadiisa loo wada ilaalin lahaa ayaan ka soo wada hadalay si wanaagsan oo soo afkarnay madaxdeena saaray سعادة وزير الدين سؤالان كويديو سفر كاغان aad ku tagtay Imaaraadka iyo Ethiopia intaan maqnayd waxa jiray warar la xiriira socdaalkaaga soo baxayay oo sheegayay inuu jiray muran idin dhaxay wasaaradda maaliyadda ka soo la xiriiray in wasaaradda maaliyaddu ay ka jartay lacagtii maamulaya amniga saas darteed carad darteed uga baxday dalka arrinka caynkaas ma jiraa wasliidadu wallahi samsamna aad baan isugu wanaagsan marka hadda ciidanka carado garan maayo wasaaraddan ida ka madaxa marka arintaas waa arrin dhan xiirsameeyay baan u maleynayaa wax ka jiraan haweeraasay ma jiro wasiirkana aad baan wada shaqeynaa aad isugu wanaagsan in waagaga saacad wasiir oo Khaliis Rafiif ka soo Royal TV intii aad ku maqneed shirka aad ka qayb gasheen Soomaaliya dad kamid ah ayaa kala qayb gasheen waxa soo baxaysay baraha internetka ama dadka ku kulmaan waxa soo baxay idinku caalamkii calan buluug xidhan bal calankaas dadku fasiraad kala duwan ka bixiyeen bal fasir calankaas wuxuu ahaa yimid la kulanaadeen calan midab buluug ku sawiraya Facebook-yada bawishka ku soo kulmay fariga waxaan ma orday meel Soomaali aan kula shiray ma jirto maana arag Soomaaliyana waxay u dumisay barigan xamar ka soo qaxay iyo calankaba meel dambo aan ku arkay iyo meel dambo la dul surayna ma jirto aad baan runtii uga xanaaqaa marka talooyaa sameeyay mareer koonfureedka sameeyay mise basaasiinteena sameysay ma garanayo laakiin waxa wax ka jira ma jiro way dad badan oo iyaga u shaqeeya jiro inaga ugu dhex jira marka waa laga yaabaa kuwaas laakiin Soomaalina ma arag meel joogaana ma arag bari xamar ka soo qaxay bay ugu dambeysay runtii calankaas oo calan aad iyo aad u nabcahay oo xuquuq badan bay naga maqan xaqii arrimahan doorashooyinka muddooyinkii ugu dambeeyay waxa soo baxay aragtiyo kala duwan oo dadku ka bixinayeen komishanka inta maqnayd waxay ayimeen in muddo sanada ay u baahan oo ay ku tilmaameen tahay waqti farsamo guurta laftirkooda muddooyinkan dambe waxay wadeen hawlo kordhina bal arrimaha iyaga maxaa soo aragteen dalka maqnayd runtii arrimahaas intii aan maqlaa way jireen waan maqlayay runtii waxaan jeclahay ka wasiir arrimo gudaha Somaliland waxaan ay wasiirka ugu dhowe ka shaqeeya ama hawlihiisa ay u badan yihiin doorashooyinka waxaan jeclahay inaan halka munaasabadan uga faa'iideysto inaan dadka reer Somaliland u sharaxo arrinta ay tahay runtii arrinta dib u dhaca waqtiga doorashooyinku ma aha mid ay dawladda Soomaaliya mas'uul ka tahay mana aha mid komishanka qaranku mas'uul ka yahay laakiin hawlo way qaybsamaayeen waxay ahayd labada diiwaan gelidood tan ah diiwaangelinta madaniga ama kaarka Somaliland iyo tan codbixiyaashu inay mar hore sanad hore ay wada bilaabmaan bay ahayd sanad ka hor nasiib darro ciddii ku shaqo lahayd voterka ama muxuu ahaay kaarka doorashada dib bay uga dhacday waanay gaari kari weydeen in la bilaabaan kii muxuu ahaay diiwaangelinta taas waxay keentay in doorashooyinku farsamo ahaan ay dib ugu dhacaan
waana waxa imika taagan ee keentay inay doorashooyinka waqtigeedu ku qabsoomi waayaan waxa kaloo in runtii nasiib darro ah weli la xataa imika inaan wixii loo baahnaa ee ay doorashooyinkaasu ama diiwaangelinta madani muxuu ahaay voterka ay ku suurtogeli lahayd ama codbixiyaasha inaanay weli ina soo gaadhin oo ay commissionku sugayaan marka Soomaalidu waxay tiraahdaa sixir wuxuu sheegay sixir ka daran in arrimaha aan maqlayaa ama TV-yada ka socday khalkhalgelinta ee aan isleeyahay waxay ka imanayaan meelo fog waxa weeye waxaynan shaqo ku lahayn mas'uuliyadeedana aynan lahayn in loo tuso ama shacabkeena iyo ummadeena loo tuso inay tahay dambi inaga aynu leenahay maaha waxaana loo baahan yahay dadku inay ogaadaan sida xaqiiqada ah arintaas waa arin ka timid dhinacii muxuu ahaayay qolooyinkii deeqbixiyaasha ee arintan iyagu gacanta ku hayay ee lacagta bixinayay ayay dib uga dhacday imikana iyagaynu ka codsanaynaa inay dadejiyaan wixii xaggooda ku xidhan waxaana loo baahan yahay arintaas oo arin maanta la isku qabsadana maaha arin dadka dhexdiisa foolxumo keentana maaha waa arin u baahan caqli iyo samir iyo inaynu kaga baxno iyo wadatashi iyo muxuu ahaayay caqli wanaagsan runtana aynu ogaano aan laynoo kala sheekayn ama aan laynoo kala sheegin waxaan dhexdeena olbay ayay u baahan tahay waxaan qabaa ha dheeraata hase dhawaatay kulliba doorasho waa ina daaweyno way dhacaysaa marka aynu farsamooyinkeeda dhammayno ninkii walo Soomaaliland ama la dooranaya ama wax dooranayana diyaar buu u noqonayaa marka anigu ma qabo wax la isku qabqabsada iyo hadallo foolxumo iyo keena xanaf in meesha ka soo baxdana loo baahna waxaanay arintadu ka turjumaysaa caalamku waxaan ku jirnaa tijaabo duruufuhu had iyo jeer iyo caqabado way yimaadaan laakiin waxa la eegaa ummadaas hadba siday caqliga ay kaga shaqeysay sida uga baxdo marka sidii Soomaaliland ba ay hore uga bixi jirtay dhibaatooyinkan qaba in looga bixi doono mana qabo inay tahay arrin buuq iyo khalkhal mid keeni karta way saacad wasiiri magacaygu waa Peter Koosaan Maxamuud mudooyinka ku tabeeyay waxa soo baxay warar sheegaya adiga iyo madaxweynaha naafiriintu mudooyinka ku tabeeyay wanaagsanay sida ma qabta mise wararka maxad ka jawaabaya wallahi kan caalamka Soomaaliya dul saaran baa isagana ma farsameeyo ma maranaya laakiin odayga aad baan isugu wanaagsan saacad wasiir saan ka warqabno commissionka doorashooyinku waxay qabteen inay muddo sanadayga ku dhamaysanay dhamaan bahawlahooda golaha guurtooda soo kale ayaguna muddo kordhin bay dhinacay ka wadaan oo maanta u dambeysay guddi baa loo saaray beesha caalamku waxay doonaysaa sanadkaas inay wax walba ay ku dhamaadaan adigu waad soo aragtay baaqi kala duwan way soo saareen ma isleeday adigu sanadka way ku dhacaysaa doorashadu mise muddo kordhintan aad commissionku wado ayaa saxsan baa u leedahay runtii anagu waan ka wada hadalnay cidii aanu saragnay waana istusinay meelaha ay ilaa imika ay wax ka maqayeen waanu isla garanay had iyo jeerna waxaanu maaha wax siyaasad dib loogu dhigo wax farsamay noqotay farsamadaasuna waxay ku xidhan tahay hadba sida uu soo buuxsanto ayay ku xidhan tahay waana arrin la sugayo international community-guna way og yihiin inta badanna cid laga sugaya waa iyaga marka anigu waxaan qabaa cid waliba dawladuna way jeceshay cid waliba way jeceshay in waqtigeeda ku qabsanto laakiin warkii farsamay naga reebtaa waa halkeeda saacadii si magacay way qorsheed Korea in waxaan jeclahay su'aal ku dafra badan xilliga joogo galan qaadayay oo si kariima ku daraa in xalka hadlay shirkadaha isgaarsiinta iyo shirkadaha miilaha hadii dhulka maranida ay ganax ka qaadaysaa dafra badan laga joogo waxilligii loo runtii waa qolooyin badan oo sameeyay way jiraan dhulka geliyay kuwa imika ku tiri jiraan way jiraan laakiin waqti ganax uu jooga aad baad ii xasuusay ha u diyaar garoobaan cidii aan gelin ganax ay bixin doontaa hadii waxaan ugu yar $1,000